fadlan ha ilaawin inaad subscribe saarto si aad u hesho sheekooyinkeena. Ha ilaawin inaad gambaleelka furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee arka. Mawduucayna maanta wuxuu ku saabsan yahay qiso yar sana aad u macno badan. Qisadani waxay ku tusinaysaa qofka insaanka ah meesha uu ka raadinayo guushiisa iyo meesha ay taalo. Qof walba oo insaan ah wuxuu raadiyaa guul, wuxuuna ka raadiyaa meelo fogfog, balse waxay taalaa hoostiisa iyo meel uuna filanaynin. Nin ayaa waxa uu watay dheeman aad u qaali ah. Waxaa arkay nin tuug ah. Wuxuu rabaa ninka tuuga inuu dheemankaas ka dhaco. Wuxuu ku yiri, halkee baad u socotaa? Ninkii wuxuu ku yiri, tuulada baan u socdaa. Ninkii tuuga ah wuxuu ku yiri, aniga tuulada ayaan u socdaa, ina kaxay. Tuulada asiga uma socdee, wuxuu rabaa inuu ka dhaco dheemanka qaaliga ah. Maalinkii oo dhan wixii la socda, habeenkii waa la seexday. Ninkii dheemanka watuu iska seexday. Ninkii tuuga ahaa ma uusan seexanin, waayo shaqa ayaa u taalo. Wuxuu u soo baxay inuu dheemankan dhaco. Habeenkii oo dhan ninkan ayuu fatashaa, jeebadiisa oo dhan ayuu baartaa, waxna kama helo. Subaxii markii la soo tooso oo socdaalkii la bilaabo, wuxuu arkaa ninkii oo dheemankii wata. Maalinkii kale waa la socday, habeenkii sidoo kale waa la seexday. Ama ninkii tuuga ah shaqadii ayuu ku laabtay oo ninkii ayuu dib u baaray, waxna kuma uusan ka helin. Markii loo dhawaado tuuladii loo socday ayuu wuxuu ku yiri, ninyahow, aniga tuuladan maanan u soconin, waxaan kuu soo raacay inaad dheemanka kaa xado. Habeenkii oo dhan waan kaa baaraa oo jeebadaada dhan ayaa fatashaa, kaama helo. Subaxiina waa wataa. Ninkii dheemanka lahaa ayaa wuxuu ku yiri, habeenkii markii oo gobolka dhaco, jeebadayda ayaan ka soo saaraa, jeebadaada ayaan geliyaa. Subaxiina jeebadaadan kala soo baxaa. Waxa uu raadinayo inay ku jireen jeebadiisa. Halkee ayuu ka raadinayaa asiga? Dheemanka iyo jawharada qaaliga ah jeebadiisa ayaa habeenkii ku baridaa, balse asiga meel kale ayuu wax ka raadinayaa. Mithaalkan maxaan u soo qaadanaynaa? Waxa aan raadinayno aan u dhibtoonayno waxay yaalaan hoosteena iyo meel aan naga dheereen. Qisadani waxay cibro u tahay qof waliba oo noloshiisa ku xira meel kale, ama dadka aaminsan hadday Yurub tagaan inay gaareen guushii noloshooda. Dadaal iyo juhdi fara badan bixi si aad u gaarto guushaada. Waad heli kartaa oo waad gaari kartaa haddii aad ka raadiso meesha ay taalo. Haddaba walaal, ha ku fikirin farxadaada inaad meel dheer ka raadiso. Garaawso hadafka uu Alle kuu abuuray, kadibna ku dhaqaaq waxa kula gudboon adigoo Eebbaweyne kaalmaysanayo.